kulanti wacan saaxiibayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah Sheekh Shariif oo xog dheeraad ah ka bixiyay shir xasaasi oo Muqdisho uu kula qaatay hoggaanka beesha Mudulood qaramada midoobe oo war cusub ka soo saartay shirka maamul goboleedyada uga furmaya Dhuusamareeb iyo shirqool kale la damacsan yahay madaxweyne Farmaajo Soomaaliya oo marxalad cusub oo siyaasadeed lugaha la gashay iyo waliba iscasilaada ra'iisul wasaare Khayre oo la xaqiijiyay lafta gareen iyo waare oo bedelay go'aankooda doorashada ee 2020 2021 iyo qarax ay maleegeen xubno al-shabaab oo la fashiliyay intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan ayna ku horeynay madaxweynayaashii hore ee dalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa kulan gaar ah waxay kula qaateen hoggaanka dhaqanka beesha Mudulood magaalada Muqdisho kaas oo looga hadlay arrimo xasaasi ah kulanka oo ka dhacay xarunta madasha xisbiyada qaran ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay xildhibaan Cabdiqaadir Cosoble iyadoo ay dhanka dhaqanka goobjoog ahaayeen Imaam Maxamed Yuusuf iyo Ugaas Maxamuud Cali Ugaas intiisa badan waxaa kulanka diiradda lagu saaray sidii uu qabsoomi lahaa shirka beesha Mudulood oo uu qorshihiisu yahay in la qabto 13 bishan July ee sanadka 2020 madaxweynayaasha hore dalka ayaa hoggaanka dhaqanka kala hadlay sidii uu shirweynahaasi u noqon lahaa mid miro dhal ah oo ay ka soo baxaan natiijo waxtar u leh aayaha beesha iyo deganaanshaha magaalada caasimadda ee magaalada Muqdisho sidoo kale waxaa shirka lagu soo hadal qaaday xaaladda guud ee dalka gaar ahaan doorashooyinka la filaya in la qabto dhamaadka sanadka 2020 2021 Imaam Maxamed Yuusuf oo madasha ka hadlay ayaa xusay inay ku hoolan yihiin qabanqaabadii ugu dambeysay ee shirka wuxuuna u mahadceliyay Xasan Sheekh iyo waliba Sheekh Shariif oo qayb ka qaadanaya qabsoomida shirkaasi oo uu hore dib u dhac ugu yimid si kastaba ha ahaatee shirweynaha beesha Mudulood ayaa ku soo aadaya xilli dhawaan golaha shacabka Soomaaliya uu meelmariyay xeerka matalaadda gobolka Banaadir oo ay wada tashiyo muujinaysa beesha caalamka 13 kursi ay ku yeelan doonto golaha aqalka sare geesa kalena Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu war ka soo saaray kulanka beesha Mudulood iyo waliba isaga iyo Xasan Sheekh Maxamuud ku dhexmaray magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya qoraal kooban oo Sheekh Shariif ku soo qoray bartiisa Facebook ayaa waxa uu ku sheegay in kulan gaar ah ay xarunta madasha xisbiyada qaran kula qaateen isaga iyo madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo xildhibaan Cabdiqaadir Cosoble dhaqanka beesha Mudulood ay hogaaminayaan Imaam Maxamed Yuusuf Cali Imaam iyo Ugaas Maxamuud Cali Ugaas Cabdulle waxaana isxogo waraysi xaaladda guud ee dalka si gaar ah uga wada hadleen shirarka socda ee danaha iyo ayaha beesha Mudulood oo aan dhaqanka u xaqiijinay buu yiri inay taageero weyn oo aan ka filayno waxa beelasha Mudulood iyo Soomaaliya wada anfacayna ka soo baxan shirkaasi shirka ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta madasha xisbiyada qaran oo ku taala agagarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho dhinaca kalena xafiiska qaramada midoobe ee Soomaaliya ayaa war ka soo saaray shirka madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka ugu furmi doona magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug qoraal ka soo baxay xafiiska qaramada midoobe ayaa waxa lagu soo dhaweeyay shirka madaxda maamul goboleedyada ay yeelanayaan 9 bishan Luulyo kaas oo looga hadli doona arrimo ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo qodobo kale sidoo kale qaramada midoobe ayaa sheegtay in hor u dhac u yahay shir heer qaran oo dhexmari doona federaalka iyo dowlad goboleedyada ay kaga arinsanayaan arrimaha doorashooyinka amniga iyo waliba dib u eegista dastuurka dalka shirka ka furmaya magaalada Dhuusamareeb 9 bishan ayaa waxa looga hadli doonaa xaaladda siyaasadeed ee dalka sidii loo xalin lahaa khilaafyada jira dib u soo celinta wada shaqaynta dowladda iyo arrimaha doorashooyinka dalka ee 2020 2021 shirka ay yeelanayaan madaxda maamul goboleedyada ayaa waxa uu yimid kadib markii uu fashilmay kulankii madaxweyne Farmaajo isugu yeeray maamul goboleedyada dalka kaas oo Muqdisho ka dhici lahaa 5 ilaa 8 bishan July waxaana shirkaasi qaadacay maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland kadib arrimo siyaasadeed oo maalmihii dambe taagnaa waxaa hadda sii kordhaya walaaca laga qabo ee kala haridda maamul ee sanadaha soo jiitamaysay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre
shakiga ugu weyn waxa uu yimid kadib markii ra'iisul wasaare Kheyre uu safar ku tagay dhawaan magaalada Dooxa ee dalkaasi Qatar. Muddo 10 cisho ayuu ku maqnaa waxaana la sheegay in lagu cadaadinayo xilka uu ku dago balse dib u soo laabashadiisa kama uusan hadlin arrimaha la hadalhayay. Xildhibaan Cabdirasaaq Jinde oo ka tirsan Golaha Shacabka Soomaaliya ayaa sheegay inay hadda Villa Soomaaliya rabto qof ka tirsan mucaaradka ay xilka ra'iisul wasaaraha la rabto. Sidoo kale waxaa la soo sheegayaa in muddo 2 sano ah dowladda ay rabto inay muddo kororsi ay samaysato. geesa kalena madaxweynayaasha maamulada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle ayaa si aad ah u taageersan Villa Soomaaliya kadib markii dhaqaale fara badan oo laga saaray qasnada dowladda ay madaxdaasi ku soo baxeen. balse warar maalmihii u dambeeyay soo baxayay ayaa muujinayay in madaxda maamul goboleedyada ay midoobayaan sida ay ugu hortagi lahaayeen qorshaha madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo guddoonka Golaha Shacabka. magaalada Dhuusamareeb ayaa loo madlan yahay waxaana 9 bishan ka furmaya shirka maamul goboleedyada kaas oo lagu iclaamiyay kulanka qadka internetka Zoom-ka loo yaqaano ee WhatsApp-ka ku dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada 22 Juun kaas oo saaxiibadii ugu dhawaa madaxweynaha sida madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen uu si weyn uga hor yimid waxa ka socda baarlamaanka ee ansixinta xeerka doorashada. kulanka 22 Juun ayaa ahaa mid uu madaxweyne Farmaajo uga hortagay war saxaafadeed ay soo saari lahaayeen madaxda maamul goboleedyada oo xilligaasi ay shirar hoose ka yeesheen xaaladda doorashada dalka isagoo si degdeg ah u qaban qaabiyay kulanka uu yeelanayo madaxda maamul goboleedyada. madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa si cad uga hor yimid madaxtooyada Soomaaliya ee doorashada markii uu taageeray baaqi gudoomiyaha aqalka sare waana madaxweynaha saddexaad ee ugu fog marka lagu daro madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland wuxuuna dagaal qaraar oo siyaasadeed kala dhaxeeya gudoomiye Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. madaxweynaha Galmudug oo qaatay talaabo aanu si cad ugu muujin mowqifkiisa ayaa isna dhinac maray madaxtooyada wuxuuna qayb ka yahay qabanqaabada shirarka madaxweynayaasha maamul goboleedyada ee lagu qaban doono in mowqif midaysan looga qaato doorashada la isku khilaafsan yahay. Villa Soomaaliya ayaa saaxiibo muhiim ah ku weysay hanaanka doorasho ay soo bandhigtay iyo waliba doorashada ku aadan 2020-2021 waxaana arintaasi laga cabsi qabaa in dalka ay geliso qadar siyaasadeed. qaybaha dambe ee wararka Soomaalida ayaynu soo gaarnay. dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xubno ka tirsan beesha caalamka ayaa cadaadis xoogan ku saaraya madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed kaas oo ku aadan inay aqbalaan dalabkii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee ahaa in muddo 13 bilood lagu daro si ay u xaqiijiyaan in doorasho qof iyo cod ah dalka ka dhacdo. kulamo maalmihii u dambeeyay ka socday magaalada Muqdisho ayaa weli miro dhal noqon kuwaas oo hoggaanka madasha lagaga dhaadhicinaya inay ogolaadaan in muddo kororsi ay samayso xukuumadda isla markaana ay joojiyaan hadallada xanafta leh warbaahinta ay la wadaagayaan. Villa Soomaaliya ayaa guddoonka Golaha Shacabka u xilsaartay inay la xaajoodaan hoggaanka madasha isla markaana arintaasi ka dhaadhiciyaan. gudoomiye Mursal iyo ku-xigeenkiisa Muude ayaa dolaad kulan la qaatay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif wuxuuna kala hadlay arrimaha doorashooyinka iyo waliba hanaanka ugu habboon ee si wada jir loogu wajihi karo qabsoomideeda. madaxweyne Farmaajo waxaa ka go'an muddo kororsi in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo wuxuuna wadaa qorshe uu ku bedelayo xukuumadda si mucaaradka loogu qanciyo. maamul goboleedyada dalka ayaa dhankooda ka biyo diidan hanaanka doorashada ay xukuumadda soo bandhigtay iyo dalabkii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. ugu dambeyntiina sirdoonka maamul goboleedka Jubbaland ayaa fashiliyay qarax ay dagaalyahana ka tirsan Al-Shabaab ka fulin rabeen deegaanadooda isla markaana ay rabeen in dad shacab ay ku dhibaateeyaan. sirdoonku waxay bartooda Facebook soo dhigeen qoraal ay ku xuseen fashilintaasi weerarka sidoo kalena waxay sheegeen inay soo saarayaan miina ay dagaalyahanadu meel ku aaseen. warbixinta la soo dhigay baraha bulshada laguma cadeynin deegaanka ay arintani ka dhacday balse waxaa lagu soo koobay kaliya inay tahay meel u dhow webiga Juba. ciidanka oo daba socday xogna ka hayay damaca cadowga ayaa miinada idin muuqata ka soo saaray goob ay argagixisada geliyeen oo webiga qarkiisa waxaana ay damacsanaayeen in gudaha tuulada soo geliyaan hase ahaatee waa laga hortagay dhagartooda ayaa lagu yiri bayaan la soo saaray. bayaanka ayaa sidoo kale ku qornaa 2 asbuuc ka hor ciidanka nabad sugidda Jubbaland waxay fashiliyeen isku day noocan oo kala ahaa oo Yoontoy ay miinooyin ku fashiliyeen. ciidamada ammaanka Jubbaland ayaa muddooyinkii u dambeeyay waday howlgalo ay ku doonayaan inay ku xaqiijiyaan ammaanka maamulka oo ah
meesha ay ugu badan yihiin dagaalyahanada al-shabaab ee xiriirka la leh al-qaacida. dhinaca kale ma jiraan wax war oo laga helay dhanka dagaalyahanada oo arrintani ku saabsan. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelkan waa naga inta. fadlan haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biro subscribe saar, sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraan wararkaynu halkani soo gelino. waana mahadsantiin.